Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa sida aad lacag kaga samayn lahayd online-ka adigoon haysan wax lacag ah. Muuqaalkii hore waxaan kaga soo hadalnay 1x Partners qaybteeda affiliate-ka. Sidoo kale, muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa Betwinner, gaar ahaan qaybteeda affiliate-ka. Isla tallaabooyinkii hore ayaad qaadaysaa. Ugu horreyn waxaad soo samaysanaysaa Trust Wallet ama Betwinner Player account oo cusub midkood. search barka mobilkaaga ayaad waxaad ku qori doontaa Betwinner Affiliates. Markii aad ku qorto Betwinner Affiliates, waxaa kuu soo bixi doona linkiyo oo ay ka mid yihiin Betwinner Affiliates. Waxaad ku dhufan doontaa linkiga ugu horeeyo ay ku qoran tahay Betwinner Affiliates. Kadibna waxaad tegi doontaa website-ka qaybta affiliate marketing-ka ee Betwinner. Qaabkan ama wajahadan ayuuna u egyahay. Sidaad arkaysaan website-kan ama Betwinner qaybteeda affiliate-ka iyadana waxay la mid tahay sida 1x Partners. Waa fast approval oo isla markiiba ayaa lagu soo aqbali doonaa haddii aad akoon ka samaysato. Sidoo kale fast payment lacag bixintoodana waa mid oo fast ah oo degdeg ah oo waxay u bixinayaan si isbuuclo ah ama toddobaadle ah. Sidoo kale waxay leeyihiin high quality ads ay leeyihiin hay'isiino tayo sare leh, real time static ayay leeyihiin iyo caawinaad joogto ah. Haddaba si aad ugu samaysato akoon cusub affiliate ah, waxaad tegi doontaa halka ay ku qoran tahay register new account. Halkaas ayaad taaban doontaa. Markaad ku dhufato kadib register new account, waxaad buuxin doontaa foomkan soo socda. Foomkan ayaad buuxin doontaa. Halkaas sare waxaad ka dooran doontaa nooca luqadda aad rabtid. Sidoo kale halkan waxaad ku qori doontaa emailkaaga. Halkanna waxaad ka dooran doontaa nooca lacagta aad doonayso inaad kaga samayso. Halkanna waxaad ku qori doontaa passwordkaaga. Halkanna password confirmation ayaad gelin doontaa oo passwordkaaga ayaad mar labaad qori doontaa. Halka koowaad ay ku qoran tahay first name waxaad gelin doontaa magacaaga koowaad. Halkan surname ay ku qoran tahayna waxaad gelin doontaa magacaaga labaad ama naanaystaada. Birth date waxaad gelin doontaa taariikhda dhalashadaada. Halkanna waxaad gelin doontaa lambarkaaga lambarka aad wadato ayaad gelin doontaa. Halkanna waxaad gelin doontaa messengerkaaga ama waxaad ka dooran doontaa nooca aad rabtid adigoo taabanaya drop downkaas ama carabkaas yar. Carabka marka aad ku dhufato waxa ku soo bixi doona Skype, Telegram, Twitter, Viber iyo WhatsApp. Midka aad isticmaasho ayaad dooranaysaa. Kadibna halkan waxaad gelinaysaa haddii aad WhatsApp dooratay WhatsApp numberkaaga ama WhatsApp linkiga ayaad gelinaysaa ama Telegram userkaaga ayaad gelin doontaa. Intaas markaad samayso kadib halka ay ku qoran tahay country waxaad ka dooran doontaa wadanka aad joogto. Halkana waxaad ka dooran doontaa magaalada aad joogto. Halkana waxaad ka dooran doontaa addresskaaga. Halkana waxaad ka dooran doontaa zip code. Zip code-ka waa 252 ama 252 ayaad ka dhigan kartaa. Kadib halka ay ku qoran tahay agree to the terms and conditions ayaad tick saari doontaa. Kadibna halka ay ku qoran tahay submit ayaad taaban doontaa. Sidaas ayaadna u samaysan kartaa Betwinner Affiliate. Markii aad samayso kadib halkaas ayaad taaban doontaa oo ay ku qoran tahay login. Login markaad dhahdo waxaad gelin doontaa userka iyo passwordka aad soo samaysatay ama emailka iyo passwordka aad ka soo samaysatay. Markaad samaysatay kadibna wuxuu ku soo furmi doonaa wajahad sidaan u eg. Adiga marka hore meelahan oo dhan waxay ku tahay 0. Meel walba waxay ku tahay 0. Sidaas darteed si aad u bilowdo ama aad u samaysato promo code waxaad tagi doontaa saddexdaas dhibcood ee sare. Ilaahay saddexda xariijimood ee sare.
markaad ku dhufato kadib waxaad kasii tagi doontaa meesha ay ku qoran tahay promo codes. markaad ku dhufato promo codes halkan ay ku qoran tahay add promo code ayaad ku dhufan doontaa ama aad taaban doontaa. markaad taabatid kadib halkan waxaad ku qoranaysaa promo code-ka magaca aad u rabto ayaad ku qoran doontaa. tusaale ahaan win 24 magacaas oo kale ayaan tusaale ahaan aan qoraynaa. kadibna waxaad taaban doontaa halka ay ku qoran tahay add promo code. add promo code markaa ku dhufato isla markiiba promo code wuxuu ku dhihi doonaa waa la abuuray promo code-kaaga. sidaad arkaysaan promo code-kan ayaan abuurnay win 24. kadibna promo code-kan ayaa qof waliba aad ma garanaysa aad u sameynayso betwinner player id promo code-kan ayaad ugu sameynaysaa win 24 ama promo code-ka aad samaysatay ayaad u sameynaysaa. si aad promo code-kaaga waxa aad ugu bedesho meesha ay ku sawiran tahay qalinka ayaad ku dhufanaysaa oo waxaad awoodaa inaad wax ka bedesho. xitaa haddii aad rabto inaad waxyaabo qaar aad ka bedesho waad awoodaa inaad bedesho. sidoo kale haddii aad rabto inaad iska tuurto promo code-kan calaamadan ay ku qoran tahay salada ah oo delete-ka ah ayaad taaban doontaa. si aad u ogaato inta qofood oo isku register gareeya halka ay ku qoran tahay registrations horteeda oo 0 ah ayaad arki doontaa qof walba oo isku diiwaan geliyay promo code-kaas. sidaan haddaan idin tusi doono promo code-kan ay ku qoran tahay sabuni 24 waxaa isku diiwaan gelisay 2 qofood player-kana waa 1 qof sida active-ka ah. promo code-kan kale oo sabuni kaliya ku qoran waxaa isku diiwaan gelisay 10 qofood player-kana waa 8 qofood. dadka si toos ku isticmaalana waa 8 qofood. sidaas darteed qaabkaas ayaad u isticmaalaysaa ama aad u adeegsan doontaa. haddaba waxaan isla aadi doonaa betwinner application-kan isla aadi doonaa. waxaana idin tusi doonaa sida loo adeegsado promo code-ka. hadda promo code-ka aan sameynay xusuusno waa win 24 waxaan isla aadi doonaa betwinner-ka application-ka caadiga aan isla aadi doonaa si aan qof akoon ugu sameyno ama player id aan ugu sameyno anagoo isticmaalayna ama adeegsanayna betwinner-keena promo code-kiisa gaar ahaan qaybta affiliate-ka. markaan isla aadno kadib markaan isla imaano betwinner-ka application-kiisa caadiga ah oo bedka ah waxaan tagi doonaa registration. markaa registration aan tagna ka bacdi waxaan kasii dooran doonaa in one click markaan kasii doorano meesha koowaad waxaan ka dooran doonaa wadanka. meesha labaadna waxaan ka dooran doonaa currency-ga ama nooca lacagta. meeshaan waxaan gelin doonaa promo code-ka aan soo sameysanay ayaan gelin doonaa. wuxuu ahaa win 24. qaabkii rabta ayaa u qori doontaa xaraf weyn iyo xaraf yar qaabkaad doontid. waayo betwinner-ka noocaasa adiga keliya ayaa kuu samaysan. haddii uu hore u jiri lahaana shirkadda kuuma ogolaateen inaad mar labaad aad samaysato. sidoo kale halka ay ku qoran tahay sport waxaad kasii dooran doontaa casino plus games. haddii sportiska dadka qofka aad u sameynayso uu aada u hiiseeyana sportiska ayaad kaga tagi doontaa. halkay ku qoran tahay sports markaad ugu tagto first deposit bonus qofka wuxuu heli doonaa qofka isku diiwaan geliyo promo code-ka wuxuu heli doonaa 108.74 USDT ayuu heli doonaa. waa first depositkiisa. waxaa loola jeedaa lacagta uu dhigto lacag la eg oo bonus ah ayuu heli doonaa. sidoo kale casino plus games haddii aad ka dooratana wuxuu heli doonaa 326.22 USD iyo wax ka badan oo bonus ah ama package ah ayuu heli doonaa. sidaas darteed waxaan dooran doonaa haddii qofku aad u sameynayso uu aada u haysayo casino gameska waxaad dooran doontaa casino plus games
kadibna accept ayaad leedahay. kadibna saddexdan meelood ayaad tig saari doontaa. markaad tig saartid ka bacdi waxaad kasii dhufan doontaa meeshaas ay ku qoran tahay saxda ayaad ku dhufan doontaa. markaad ku dhufato sidaas ayaadna ku samaysatay. kadibna waxaad ku qaadan doontaa screenshot. qaabkaas ayaad u samaysanaysaa Betwinner. kadib waxaan dib ugu soo laaban doonaa Betwinner affiliates website-kii qaybta affiliate-ka ahaa. sidaad arkaysaan barnaamijyadii hore aan isticmaalayay waxaan ka sameeyey hadeer oo toddobaadkan $20 iyo 2 senti ayay sii maraysaa oo available ah. si aad u ogaato lacagaha waxaad ku dhufan doontaa ama taaban doontaa halka lacagtaas ay ku sawiran tahay oo balansiga ah. sidaad arkaysaan in hold wax lacag oo in hold ah ma jiro. waxa available ah $20 iyo 2 senti. halkan ayaad ku dhufan doonaa payment information si aan u ogaano lacagihii aan kala baxnay ama lacagihii aad samaysay. in hold ma jiro. available waxa ay ah $20. lacagtan $20 ah haddii 30 gaadho waan la bixi karaa. waxayna soo fasaxi doonaan talaado walbo ayay fasaxi doonaan. haddii talaadada soo socota ay gaadho way inoo fasaxi doonaan. sidoo kale pending payment meeshay ku qoran tahay waxay gali doontaa maalinta isniinta ah ayay pending gali doontaa lacagta weliba gelinka dambe. maalinta talaadada ahna halkan ayay tegi doontaa lacagta waa la bixin doonaa oo si toos ah ayaa waxaa kuugu dhici doona player ID-ga aad ku xiratay misane haddii Trust Wallet iyo waxyaabo la xiriira aad ku xiratayna Trust Wallet-ka ay kuugu dhici doontaa si automatic ah. payment period-ku waa weekly waa si toddobaadla ah. intaas waxaan rajaynayaa inaan isla fahanay. sidoo kale haddii aad u baahan tahay waxyaabo kale ama aad cilad ay kula soo gudboonaato oo aad rabto inaad la xiriiro qaybta adeega macaamiisha waxaad taaban doontaa live chat ama waxaad kaloo taaban doontaa custom reports. haddii aad taabato live chat oo markaas aad ku dhufatid waxaa kuu soo furmi doona wajahad caynkaana. markay kuu soo furmato kadib waxaad kasii taaban doontaa ama aad sii taaban doontaa falaadhaas. markaad taabato kadib halkan ayaad ku qoraysaa cabashada aad qabto ama cabashada waxa aad ka cabanayso aad rabtana in laga xaliyo. halkan aad ku qori doontaa kadibna aadi ayaad u diri doontaa. haddii screen ama sawir aad soo gelin rabtidna halkaas calaamadaas ku sawiran ayaad taaban doontaa. markaad taabato kadibna waxaad awoodaa inaad sawiro aad soo doorato ama kaamira aad ka qaado ama fileska kugu jira mobilkaaga aad kasoo dhex walato. intaas waxaan rajaynayaa inaan isla fahnay. wixii maanta ka dambeeya ma heli doontid cudurdaar ah inaadan lacag haysanin si aad lacag uga samayso internetka ama online-ka. sidaas darteed intaynu muuqaalkan mid la mid aynu dib uga kulmi doonno haddii alla weyn uu ogolaado. isma dhaafin. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.